waa diyaarad nooca dagaalka ah taasi oo loogu magac daray Somali Air Force waxaana sameeyay Axmed Cumar Sahal. diyaaradan oo lagu soo bandhigay Cadaado ayaa dhir ahaan 3 mitir wuxuuna sheegay injineerka hirgalshay inuu ka fakarayo dhowr sano hase yeeshee haatan ay ku qaadatay muddo 2 bilood ah. diyaaradan culays ahaan waa 65 kilogram oo kale ah laakiin muuqaal ahaan aad u weyn tahay dhirirkeedu waa 3 mitir ballaceedu waa 1.80 mitir talagalnay inaan aad uga fududeyno maadaama aan rajaynayno mustaqbalka insha Allah inay duusho hawada gasho. intaan ku jirnay waa 2 bilood laakiin inta xogteeda aruurinay waa sanadiyaan dhigi karnaa. number 1 horta maadaama dalka uu san lahayn diyaarado uu sameeyay ama balkan leeyahay farsamooyin casri ah oo tiknoolajiyada horumartay ah ayaa waxa igu dhaliyay number 1 horta inaan isku dayo horta number 1 inaan isku dayo inaan wax oriyo hadda diyaaradan oo kale ay isku madayo inaan number system badan isku dayo marka waxa igu dhaliyay inaan ka qayb qaato horumarka dalka. diyaaradan ayaa ku shaqeynaysa electronic hase yeeshee injineerka ayaa sheegay in dib habeyn ay ku sameyn doonaan haatan loo wadi karo 2 qaab oo kala ah in qof kaxeeyo iyo in laga maamulo remote. duulitaanka insha Allah waa qorsheynaynaa waxaan hadda qorshaha waxaan wadnaa inaan ka bedelno systemka electroniga oo u bedelno system oo motor ah ama engine ah. motor waxaan isticmaali doonaa insha Allah hadii fursad noo saamaxdo basiin ah iyo sidoo kale marawaxado aan ugu talagalnay inay culayskaas gravitation kala dagaalamaan oo ah hada matalanba culayska diyaaraddu waa 65 kilogram pilot ka wadayana matalanba waa 70 kilogram hadda aan kala dan ka soo qaado waxaan insha Allah la tacaali doonaa hadii waqti noo saabaxo marawaxad iyo motor ku munaasab ah culayskaas dhulka ka qaadi kara insha Allah. dhamaantood caadadan ka diyaarinay marka laga reebo hadda rumudiyada oo aan arki kala talbaday remote control system ku shaqeyn kara hadda si arkisan qaybtaan oo kale waxay ka qaadmaysaa remote control ku qaadmaysaa sidoo kale hadii loo baahdo remote control lagu wadi kara hadda sidoo pilot la'aana. diyaaradan maanta lagu soo bandhigay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ayaa dhir ahaan sida inuu muuqanaysa waxa ay ka kooban tahay ilaa 3 mitir. haatan qorshaha koowaad waxa uu yahay in la wado aysan wili doolin balse injineerka ayaa waxa uu sheegay in wili ay u dhiman tahay qorshayaal kale oo ah in lagu horumariyo qaab dhismeedkeeda iyo sidoo kale motorka ay ku socon doonto. Axmed Cumar Sahal ayaa sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo in diyaaradda uu dooliyo ugu dambeyn marka uu gaarano guushiisa uu u hibeyn doono diyaaradda ciidamada difaaca cirka Soomaaliya. Maxamed Maxamuud Owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.